kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxa qayb ka ah Ruushka oo digniin culus u diray dal ka tirsan Yurub haddaba maxay dalkan iyo Ruushka isku hayaan maxayse tahay jawaabta loo diray haddaba reer Yurub waxa la tusilayaa Ruushka dalalka yaryar xitaa waxa ay la facaysanayaan ama ay la ficiltamayaan Ruushka iyo dalalka waaweyn haddaba barnaamijkeena ayaanu saaxiibayaal ku eegi doonaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa dalbatay in si degdeg ah loo qaado xanibaadda cadowtinimada cad ee Lithuania ee ku aadan gaadiidka tareenada ee alaabada u geeya wadamada midowga Yurub ee cunaqabateynta Moscow ee Kaliningrad la yiraahdo Kaliningrad oo u dhaxeeya midowga Yurub iyo xubinimada NATO ee Poland iyo Lithuania ayaa waxa ay sahayda ka heshaa Ruushka iyada oo la sii marinayo dhuumaha tareenada iyo gaaska iyada oo sidoo kale qayb ka tahay Lithuania goobaha la sii mariyo dalkan Baltic dhaca ee Lithuania la yiraahdo ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay mamnuuceen gaadiidka tareenada ee badeecadaha cunaqabateynta midowga Yurub ay ku soo rogeen dhul weynaha Ruushka ee Kaliningrad la yiraahdo liiska waxa ku jira dhuxusha biraha qalabka dhismaha iyo farsamada casriga ah balse Ruushku ma yeelin wuxuu leeyahay Lithuania waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo cad haddii aadan ka wantoobin ee xayiraadaha aad saarayso ganacsiga iyo sidoo kale waxyaabaha Ruushku uu dhoofinayo haddii mustaqbalka dhow gaadiidka xamuulka ee u dhaxeeya gobolka la yiraahdo Kaliningrad iyo inta kale oo dhulka Ruushka loo maro Lithuania aan si buuxda loo soo celin waxa ay markan Ruushku ay xaq u leeyihiin inuu qaado tallaabooyin uu ku ilaalinayo danihiisa qaranka ayuu yiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka bayaan ay soo saartay Isniintii wasaaraddu waxay sheegtay in ay u yeertay mas'uuliyiinta Lithuania ee Moscow si ay uga mudaharaadaan tallaabooyinkan ama ugu horjoogsadaan dowladooda waxayna ku tilmaameen tallaabooyin daandaansi iyo cadowtinimo cad oo aanu gambasho lahayn inay tahay horaantii Isniinta Kremlinka waxa ay sheegeen in go'aanka Lithuania uu ahaa mid aan hore loo arag iyo sidoo kale xadgudubyo wax kasta oo ku aadan gudaha Ruushka ay ku tahay maadaama Lithuania aysan xifaaltan kala dhixin Ruushka xaaladdu aad ayay ugu sii daraysaa ama ugu sii daran tahay waxayna u baahan tahay falanqeyn aad u qoto dheer ka hor inta aan la sameyn wax tallaabo ah iyo go'aano afayeenka Kremlinka Dmytro Boskev ayaa u sheegay suxufiyiinta sidaasi isagoo oo sidoo kale ka cararaya in Ruushku uu weerar qaado sirka arrimaha dibadda ee Lithuania Gabrias ayaa difaacay tallaabadaas wuxuuna sheegay in dalkiisu uu si fudud u fulinayo cunaqabateyn uu saaray midowga Yurub isla markaana isagu midowga Yurub uu xubin ka yahay waxa uu sheegay in tallaabooyinka la qaaday kadib la tashi la sameeyay guddiga Yurub ee habraaceeda alaabta xayiran ama alaabaha xiran ee la saaray ma loo ogolaan doono in ay ku sii gudbaan ama ay sii dhaafaan Lithuania iyada oo taasi ay raacisay warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in dalka Lithuania yiraahdo uu raacay cunaqabateynta midowga Yurub oo kaliya balse uu sameeyay wax ka baxsan xaddigii Ruushka isaga u dhaxeeyay Lithuania ma aysan qaadin wax xanibaado qaran ah oo hal dhinac kaliya ah waxaana ay kaliya quseeya cunaqabateynta midowga Yurub Borrell ayaa yiri kadib kulan uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub barsaabka ee gobolka la yiraahdo Kaliningrad Anton ayaa waxa uu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ay sidoo kale u yeeri doonto safiirka midowga Yurub u jooga Moscow sabab la xiriira xayiraadaha tani waa dabcan xaalad taasi oo lagu xalin karo qaab diblomaasiyadeed Alinkanov ayaa u sheegay telefishinka Ruushka Isniintii intaasi aan ognahay talaadada Markas Adre waxa uu safiirka midowga Yurub ee Ruushka uu ku waramay in tallaabadaas maanta uu talaada ay qaadi doonaan isla markaana ay sameyn doonaan tallaabooyin ka dhan ah Ruushka sida wasaaradda arrimaha dibadda ay tilmaamtay waxaana loo sheegi doonaa shuruudaha ku habboon iyo halka ku jira iyo sida ay midowga Yurub go'aankooda u dhaqan gali doono ma jiro war rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ilaa iminka indhaha ayuu ka daawanaysaa waxa dhacaya waxaana dhinacyada kale ay sheegayaan inay Lithuania mamnuucday inay sameyso 50% dhammaan alaabada loo soo dhoofiyo dhulka kale ee Ruushka mamnuucida waxa xaqiijiyay jimcihii gacanta xamuulka ee adeega tareenka ee gobolka Lithuania oo warqad u dirtay macaamiisha kadib cadeyn guddiga Yurub
ee habka loo isticmaalo cunaqabateynta inay tahay taas oo durbaba Ruushku gaarta fariintiisa, waxaana ay arrintaasi ka dhaqan gashay guud ahaan dalkan Lithuania la yiraahdo ee ka tirsan Yurub, isagoo ku booriyay muwaadiniintiisa inay u dhaqaaqaan gadaasha argagaxa leh. Alekhnov waxa uu sheegay in 2 markab oo ay mar hore badeecooyin ku rarayeen inta u dhaxaysa Kaliningrad iyo sidoo kale St. Petersburg 7 kalena ay u shaqeyn doonaan dhamaadka sanadkan, waxaana arrintaasi ay tahay mid ayagu si toos ah ugu hortagi doonaan. Doonyada ay qaadi doonto xamuulka oo dhan, ayuu yiri Sabtidii, ayaa diyaarsaneed. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Lithuania ayaa waxay ku nuunuucsatay in safarka rakaabka iyo ganacsiga laabahan aan la cunaqabateyn aysan saameyn doonin xayiraadaha. Rakaabka iyo badeecadaha aan la xayirin ee aanu midowga Yurub cunaqabateyn ku soo rogin gobolkan la yiraahdo Kaliningrad iyo dhulka Lithuania waa ay kasii socon doonaan iyadoo aan la goonin, ayay wasaaraddu ku tiri barteeda Twitter-ka. Gurigan oo ku yaala xarunta dhexe ee maraakiibta badda ee Baltiga ee Ruushku waxaa carabka lagu dhuftay in Jarmalkii Naasiga ahaa ee ciidanka cas bishii Abriil 1945 loo dhiibay midowga Soofiyeed kadib dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana arrinkaas ay saameyn ku yeelatay hadda Ruushka, isagoo digniino culus oo isdaba joog u diraya dalalka midowga Yurub ee saameynta ku leh noloshiisa iyo sidoo kale tallaabooyinka uu qaado. dhanka kale haddii aynu eegno Ruushka waxa markan horumarinaya ciidamadiisa ku aadan tuulooyin dhowr ay qabsanayaan ee Severodonetsk oo bariga Ukraine ka tirsan, waxaa ka socda dagaalo culus. Bartamaha magaalada ayaa la soo warinayaa in qaybo ka mid ah duqeymo culus ay ka fuliyeen ciidamada Ruushka. Barsaabka gobolka Luhansk Serhiy Hadaya ayaa telefishinka Ukraine u sheegay sheegashada Ruushka ee ah in ay qabsadeen guud ahaan magaalada Severodonetsk inay tahay mid been abuur ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu rajeynayo in Ruushku uu xoojiyo weerarada dhanka Ukraine ku wajahan, xilli Kiev ay sugayso go'aanka midowga Yurub ee ku siinayo aqoonsiga musharaxnimo. Ciidamada cirka ee Ruushka ayaa si liidata uga shaqeynaya Ukraine, taas oo ku qasbaysa Moscow inay ku tiirsanaato in ka badan intii la qorsheeyay ciidamada dhulka ee daalay iyo gantaalada casriga ah ee sii dhamaanaya. Wasaaradda difaaca UK ayaa sidaas u sheegtay warbaahinta. Dhanka kale, ku-xigeenka dacwad-oogaha guud ee Ukraine ayaa sheegay in Kiev ay bilaabi doonto 19 dacwad oo dembi ah oo ka dhan ah askarta Ruushka oo lagu eedeeyay tacadiyo galmo ugu yaraan 14 habeen oo ay si ku meel gaar ah ay ciidamada Ruushka u dhibaateeyeen. Maxkamadan waxay sheegtay inay furmi doonto Ukraine ay ka furmi doonto. markaan kasoo tagno dagaalada diblomaasiyadda wararkooda haddii aanu eegno madaxa Commissionka Yurub Ursula von der Leyen waxa ay kalsooni ka muujisay in Ukraine la siin doono aqoonsi rasmi ah kahor shirweynaha muhiimka ee midowga Yurub ee Brussels dhamaadka bishan. Ukraine ma aha musharax ku haboon xubinnimada midowga Yurub, ayuu yiri afhayeenka baarlamaanka Ruushka Vyacheslav Volodin, isagoo tix raacaya wadarta musuqmaasuqa, dembiyada baahsan, awoodda isticmaalka daroogada iyo dhaqaalahooda oo burburay. UK waa in ay lahaataa ciidamo awood badan leh ayay markale leeyihiin, iyada oo UK u diyaar garoobaysa in mar kale ay diyaarsato ciidamo awood badan leh oo ay isaga difaacda haddii Ruushku soo weeraro. Marka aanu kasoo tagno diblomaasiyadda dhaqaalaha, haddii aynu eegno xayiraadaha Ruushka ee saaran dhoofinta malaayiinta tan ee haruurka Ukraine waa dembi dagaal. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isniintii ka sheegay sidaasi Luxembourg oo ku sugnaa. wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa kulan ka dhacay Luxembourg uga wada hadli doona sidii loo sii deyn lahaa haruurka ku xayran Ukraine, taas oo awoodiisa ugu badan ee gacanta ugu jirto ciidamada Ruushka iyo dowladuba. Ruushka ayaa ballan qaaday inuu sii wadi doono shixnadaha gaaska ee Hungary, sida wasiirka arrimaha dibadda uu ku sheegay warbixin uu soo saaray. Wasiirka dhaqaalaha ee Jarmalka ayaa dhankiisa sheegay in wadanku uu xadidi doono isticmaalka gaaska dabiiciga ee wax soo saarka korontada, iyadoo laga walaacsan yahay yaraanta suurtagalka ah ee sababay jirista saadka Ruushka iyo sidoo kale in saadka Ruushka aan la keenin Jarmalka oo dhan. Guddaan saxabiyaal, halkaas aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamij wareedkeena tan iyo qaybta kala saxabiyaal. Intaanu ku kulmi doono waa bahda barnaamijkooda leh nabadgelyo.